Somaliland oo ku taala gobolka Geeska Afrika waxay soo jiidanaysaa siyaasadda qaaradda midow si ay uga mid noqoto 54 dal ee looga aqoonsan yahay Afrika tii ugu dambeysay. 30 sano ayay dala dhacaysay waxayna soo gaadhay meeshii ay ka istaagi lahayd muddo kacaakuf ah oo ay ku soo jirtay. doorashooyin xor ah iyo amni sugan waa raasamaalka kaydka u ah ee lagu majeerto walow aanay dowladda ictiraaf haysata ahayn. waxay ku gaafureegto dalalka awoodaha fiitooga leh iyo wadamada hore u maray iminka waxay u egtahay inay bogga laabtay kadib markii dhabarka loo jeediyey. Somaliland inay tiigsato Maraykanka isla markaana u hayaanto Ruushka iyo guuraha ay ku tagto midowga Yurub waxay ku bedeshay inay boorka ka jafto dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika iyo wadamo aanay ka talin kalitaliyayaal gaamuray oo ay u aragto inaanay nafgelin doonin maadaama diktaatarada qaaradda Afrika qaarkood qaldhabayaan halka duul kalena dhuun yeedhinayaan. Somaliland waxay qaaday hayaan diblomaasi oo ay ku dul fadhiisanayso 54 dal ee qaaradda guduudan waxayna ku raalaysaa 4 dal oo ku amar ku taaglaya qaaradda kuwaasi oo kala ah Masar, Nigeria, Ethiopia iyo South Africa. haddaba sidee ayay 4 wadan u hogaamiyaan qaaradda Afrika ayaa laga yaabaa inaad daawada isweydiiso. qaaradda Afrika waxay u qaybsantaa 4 jiho oo kala Afrikada bari oo ay burtuur u tahay Ethiopia, Afrikada waqooyi oo ay ku horkaadido dowladda isu taqaano hooyada dunida ee Masaarida, Afrikada galbeed oo ay iyadana dambaabto Nigeria iyo Afrikada koonfureed oo ay horjooga u tahay South Africa. waxay u eg tahay haddii 40 wadan kula joogaan inaad gacanta ku hayso dhammaan dalalka qaaradda maadaama gobol kasta leeyahay urur goboleed u gaara sida ururka ay ku mudoobeen Afrikada galbeed ee loo yaqaano ECMAC oo xaruntiisu tahay Lagos, halka Afrikada barina ay leedahay urur goboleedka IGAD oo xaruntiisu tahay Addis Ababa. sidoo kale dalalka koonfurta qaaradda waxa ay ku midaysan yihiin ururka SADC ee horumarinta dhaqaalaha ee dalalka koonfureed ee Afrika, waxaana ugu dambeeya urur goboleedka ay ku midaysan yihiin dalalka waqooyiga Afrika kuwaasi oo loo soo gaabiyo African Maghreb Union loona soo gaabiyo AMU. dhammaan madaxda iyo xubno matalaya dalalkan aynu soo sheegnay ayaa si way tabaaqa u soo gaadhayay Hargeysa oo caasimadda jamhuuriyaddan xamar ka xanaaqda Addis Ababana sacabka u garaacda. waxaa dibadda u ah Ethiopia oo aan ka qoob qaadin Hargeysa isla markaana ay dowladdaasi calanka u sido urur goboleedka IGAD. waxaa sidoo kale sanadkii 2019 shantii bishii May soo gaadhay magaalada Hargeysa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Baba Olusegun Obasanjo, kaasi oo uu madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Somaliland, halka ay 2 maalmood kadib 7 bishii May 2019 ay Hargeysa soo gaadheen diblomaasiyiin iyo saraakiil military oo uu hogaaminayo wasiir xigeenka arrimaha dibadda dalka Masar, kuwaasi oo Somaliland ka dalbaday inay ka yegleeshaan saldhig military oo kaabiga badda Casa si ay u qooraasato biyo xidheenka Ethiopia ka dhisanayso Niil ee Chad, waxaana taasi sas qaadsiisay xabashida oo la jaara Hargeysa. ugu dambeyn daawade waxaa 21 Diseembar 2020 cagta soo geliyay Hargeysa isla markaana la xus ku ah Somaliland wafdi ka socda xisbiga haya talada South Africa ee loo yaqaan ANC tiyo maalin uga soo horreeyay Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Malawi Isian Hawar Makaka. dhammaanba xogaha aan helaynaa waxay ku soo biyo shubanayaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland ay u hayaantay jaha cusub taasoo ka soo deedantay dalalka jaamacadda Carabta iyo midowga Yurub, iyadoo Somaliland u aragta taasi laba aan isku danahayn uga isku daasha. liiska inooguma jiraan diblomaasiyiinta, safiirada iyo danjirayaasha faraha badan ee Somaliland dulgowdiida, kuwaasi oo hal iyo habeen iska soo daba shalwanaya madaxtooyadana kula qaxweeya dhigooda ay martida u yihiin. in badan baanu qabanay, aad iyo aad baan wax badan u qabanay. haddii ay dhahayaga wax ku arkaysaan haddii kadib ku gashantihiina waynu murmi doonaa. sideen ictiraaf u helaa ma taala su'aal weyn dhexolayaan caawa ma xisbi waxa ictiraaf waxaynu doonaa waxa inaga go'an gidigeen inay Somaliland noqoto qaran jira oo qaramada caalamka mid oo jibcida qorobanka xasataya. laakiin waxaynu doonaynaa inay su'aal aynu ka wada tashano jaamacado iyo ku suuq joogaba oo nu wadaagno sidee baynu uga dhignaa habkeebaynu marray approachkee dowladda caalamka mid walba oo martaa si ay qaran noqoto mid xoog bay ku noqotaa dagaal oo ciidankeeda xidid xirtaado wax ku guuleystay xad xidhan oo ilaa imka ku nool North Korea jirta dadkeedu gaajo ah u dhinto hadhiteen laakiin ilaa nuclear bay ku samaysatay iyadoo ciidano soo gelin waa wada la maro waxa mari jiray dowladda hore fashiiska ee Romankiyo. wadada labaad waxa jirta dowladda anagu diin baan nahdo waxaan diinta soo gelin mayno oo gabigooda diinin wax ku ilaaliya Yahuuda kamid ah oo halka cumar saato jiish ma tahay haddana jiish hay gelmaysid yatana way ku ilaashadaan. waxa jira dowladaha qaar ahab kale oo lagu ilaaliyo oo ah maskax adoon lahayn macdan
adoo lahayn beero bad lahayn adoo waxba haynin ayuu bad maskaxda ku geynaysaa adduunka ba sankaas qabanaysa Singapore ba kamid oo inaga taagta waxa la haysaa ma jirto adduunkana sankaas haysa Japan ba kamid wax alle wax resource ma leh aqliya aqoon bay keeneen nin waliba haddaad aqoontaada iyo tarantkaaga halka dhigto bina aad isaga ku baahanayo halkiis kugu soo dooranaya taasina waa wada kale oo la maro wadada saddexaad waa wadada xudxudashada dawladaha waaweyn dalka haysta iyo kuwa isu dhowtiin ciyaarada eegsataba waa inaad noqotaa nin tolaho hal dawlad xoog weyn ama Mareykan dheh ama kuwa China dheh ama Ingiriis dheh ama Sacuudiga dhaho intaad xudxudatood wax la yargarto oo gacanta ku qabto dabeetana sidii South Sudan intuu ku kaxeeyo ku dhaacay cudurka ku fadhiso bal hadda wadadaynu marayno ugu haboona waa wadooyin badan jaamacadahood homework ku qaato aan ka soo wadshan halkan marayno arrimahan farxadda gelinaya waqooyigii Soomaaliya oo ku taaladana ku abuuray koonfurta jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxay keentay himilo dhadhan iyo in dabadabka kale soo ku eegto wufuudda isdabajooga ayaa yaacaya hawada Somaliland lama oga inay u socdaan hubinta xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Somaliland lamana saadaalin karo inay ku farxaan imaatinkan iyo inay kulayl ka qaadeen balse dhanka xukuumadda ka talisa Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Biixi waxay u noqonaysaa guulo siyaasadeed oo ay u qaaday dhanka diblomaasiyadda Somaliland qadiyadeeda waa qadiyad Soomaaliyeed xalkeedana Soomaaliya u yaala diplomatic pressure lagu abuuro Somaliland oo waa diblomaasiyadda iyo sharciyadda caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinayna la yiraahdo nooma keenayso Somaliland way sii fogeynay maxaqaa'iqa adduunyada ka jira waaqaca tilmaamayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan hadduu miday karo Taiwan iyo China miday lahay China ma xog ku yar yahay veto power leh adduunyada joogto jasiiradda yarto Taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weys United Nations ka soo raacday inta ka barashar garay dalka cilaaqaadka ka goosada dhaqaalan ku siinay wax kastay ku sameeyeen Taiwan waa jirtaa waa joogtaa Somaliland hal siyaasadeed oo aqli ku salaysan oo Soomaaliyeed annagay naga rabtaa markaynu hoos u soo degno siyaasadda diblomaasiyadda xukuumadda madaxweyne Biixi waxay timaati ku noqonaysaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waxay caga ku jiidato waxayna sidoo kale daldaal werin u noqon doontaa xisbiyada mucaarada ee ka dhisan gudaha Somaliland oo xilliyadii ololaha ku eedeyn jiray hogaamiyaha kulmiye inaan far looga darin siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda midna runtiina ma jirto siyaasad qaran oo arrimo dibadeed oo xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyay midna soo bandhigay laakiin dalka Somaliland waa dal curdina oo u baahan maadaama uu doonayo inuu ictiraaf caalami helo inuu la saaxiibo dhammaan dalalka caalamka walwar iyo walbahaar ayaa isagana ka jira Soomaalida laga hadlayaa markii hore waanu ka noqonnay waxa ugu daran xidhiidhkeena deriska dawladaha deriska inaynu dawladaha aynu deriska nahay aynu si qoto dheer xidhiidhkeena aynu caalamka la leenahay aynu haddii beedmaayo karaamayno oo ilaalino wafti waynu yimaadeen waqtigiina yimaadaan inay waftiina inaga tagaan ma aha inay arrimihii dawladda wax ka qabsoomeen oo halkan waxa hore inoogu yimi European ministries baalkeen ama wasiiro Europe inoo yimi oo aan mid ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar shan dal baa inoo wasiirada inoo yimaadeen oo high level ama madax sare oo aad u sareysa marka deyn Malawi wafti ka yimi ma aha wax weyn oo ambaqaadkeena kale wuxuu yahay inuu shirkii candhowga ahaa ee urur goboleedka igad ku qabsaday ceelka Jabuuti oo ku ilaaday taxsi baroordiiq iyo gacmo masaabiira oo la ismarmariyay dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas hase yeeshee madaxdii igad ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo igad dhexdeeda dhanka kalena daleensiga Somaliland ka heshay siyaasadeeda diblomaasiyadeed ee arrimaha dibadda waxay timi xilli Jabuuti iyo Eritrea isku muqleysan yihiin sidoo kalena ay rubaha isdhigeen Itoobiya iyo Suudaan halka Kenya iyo Soomaaliya ay kala jiidanayaan xuub caado socdaalkan ku tagnay ka warqabtaan waxa martiqaad dawladda Kenya ayna siisay oo madaxweynaha martiqaaday ugu dambeyn shirkan ka muuqay gaban duqa geeska Afrika madaxweynaha Uganda